halkani waa Qubanaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda ee Soomaalida qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah qaraxyo waaweyn oo ka dhacay maanta magaalada Beledweyne iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo qaraxyadaasi ku geeriyooday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo sheegay inuu qaraxyadaasi ka badbaaday iyo xarun si aad loo ilaalinayo oo ku taala magaalada Beledweyne oo xarunta labaad ee madaxtooyada maamulka Hirshabelle oo qaraxyadaasi la beegsaday iyo sidoo kale bar control ay ilaala ka ahayeen ciidamada Jabuutiyaanka oo qaraxyadaasi laga soo geliyay xogay ugu dambeeyay iyo sidoo kale xoga sir ah oo laga helay qaraxyadaasi ay saaxiibayaal idila wadaagi doona qodobada kalena waxaa kamid ah dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay duqeyn ku dishay xubin sare oo ka tirsan al-shabaab la sheegay inuu ahaa ninka saddexaad ee ugu awoodda badan ururkaasi qodobadaasi kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal balse faafahinta aan idin bilaabo faafahina dheeraad ayaa ka soo baxaya qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaraxyadaasi ayaa sababay dhimasho mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo dad shacab ah inta la helayo dhimashada ayaa kor u dhaafaysa 10 sidoo kalena xogaha kale waxay tibaaxayaan in dadka dhintay oo ay ku jiraan gudoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Maade iyo sidoo kale wasiirkii caafimaadka maamulka Hirshabelle oo dhawaanahan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Dabageed uu shaqada ka joojiyay oo lagu magacaabayay Sakariyo isaguna ku geeriyooday xubnaha kale ee la ogaaday inay qaraxyadaasi ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah xildhibaan Geele Isaaq Warsame oo isagu ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabelle sidoo kalena ahaa mas'uulkii iska casilay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Hirshabelle waxa uu ka mid ah xubnihii maalmahanba ku howlgalnaa ama sidoo kale ku howlanaa howlgallada ka soconaya guud ahaan gobolka Hiiraan sidoo kalena wararku waxa intaasi ku darayaan inuu dhaawacyo ka soo gaaray mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo kuwa maamulka Hirshabelle qaraxyada saaka lagu weeraray Beledweyne ayaa waxa lagu fuliyay 2 gaari oo waaweyn oo xamuul ah kuwaasi oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa wali lama xaqiijin tirada kale ee qasaaraha ay ka dhashay qaraxyadaasi xilli taliyaha booliska degmada Beledweyne uu xaqiijiyay dhimashada gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Maade iyo sidoo kale xubno kale uu sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulka Hirshabelle qaraxyadani ayaa ku soo beegmaya xilli howlgalo ay ka soconayaan gobol ama deegaano ka tirsan maamulka Hirshabelle qaasatan gobolka Hiiraan ay ka soconayaan howlgalo waaweyn oo iska kaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa macaawisleyda oo dhawaanahanba deegaano aad u tiro badan ka qabsaday dagaalamayaasha al-shabaab xilli dadku ay isweydiinayaan qaraxyadani sida lagu soo geliyay magaalada Beledweyne ee xarunta lagu weeraray oo lagu magacaabo Lamagalaay oo ka mid ah xarumaha sida aadka loo ilaaliyo ee magaaladaasi ahna xarunta labaad ama sidoo kale madaxtooyada labaad ee maamulka Hirshabelle oo markii ay yimaadaan madaxda sarsare ee maamulka Hirshabelle iyo kuwa Soomaaliya dabcan inta badan halkaasi la dejiyo dadku ayaa su'aalo badan iska weydiinaya sidoo kalena xarunta ama halka ay ka soo galeen barta control ayaa waxaa fadhiyay ciidamada Jabuutiyaanka oo ka mid ah kuwa ATMIS ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta markaan haddii aynu kusoo gabagabayno dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay howlgal qorsheysan oo ay iska kaashanayeen ciidamada Soomaaliya ee saaxiibada caalamiga in lagu dilay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu waaweynaa al-shabaab qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya oo lagu faafiyay bogga rasmiga ee telefishinka qaranka waxaa lagu sheegay in deegaanka lagu magacaabo xaramka ee gobolka Jubbada Dhexe lagu dilay ninkani oo sidoo kale la sheegay in lagu magacaabay Cabdullaahi Naadir ee kana mid ahaa xubnaha aadka ugu sarsareeya dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa ragga talada u haya dagaalamayaashaasi xogaha kale waxay tibaaxayaan in ay u dhaxdo haweeney la dhalatay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hadda ah maxbuus ee dawladdu ay ka dhigtay xabsi guri sidoo kalena hogaamiyaha ururka al-shabaab ee la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Naadir isagoo madax ka ahaa ama ahaa madaxa guud ee dacwada iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsanaa al-shabaab sidoo kalena dowladda Mareykanku ninkaasi waxay duligtay lacag kor u dhaafaysa $3 milyan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hogaamiyaha la dilay uu ka mid ahaa ragga ay madaxiisa saaran tahay lacag ay baadigoobayaan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ugu dambeynna ay xaqiijiyeen hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka in lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay Qubanaha TV-na xilligan waa naginta